wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Cabdirashiid Cabdulaahi Maxamed ayaa magaalada Xudur ee xarunta gobolka Boqol waxa uu kula kulmay Sheekh Muqtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo koonfur galbeed iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed isku soo dhiibay. Cabdirashiid Cabdulaahi Maxamed iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa lagu soo waramayaa in kulan albaabada u xiran ay la qaateen Abu Mansuur. Kulanka oo ka dhacay xarunta degmada Xudur ayaa la sheegayaa in looga hadlay sidii Abu Mansuur looga dhaadhicin lahaa in loo soo qaado magaalada Muqdisho oo xarun u ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa sheegaya in shirka uu socdo isla markaana ay jiraan arrimo kale oo labada dhinac ay ka wada hadlayaan. wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ayaa doonayay in Abu Mansuur uu soo kaxeeyo magaalada Muqdisho maadaama sidaasi ay amreen madaxda dowladda sida ila wareedo ay noo xaqiijiyeen. garoonka diyaaradaha ee degmada Xudur ayaa waxaa fadhida diyaaradii lagu qaadi lahaa Abu Mansuur kolka uu ogolaado in loo soo qaado magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Abu Mansuur ayaa saaka laga soo kaxeeyay duleedka deegaanka Abal kadibna waxaa la geeyay degmada Xudur halkaas oo iminka uu ku sugan yahay. Muqtaar Roobo Abu Mansuur oo hore uga mid ahaa saraakiisha sarsare ee Al-Shabaab ayaa maalmihii dambe ciidan uu isaga watay iyo kuwa ka tirsan Al-Shabaab waxa ay ku dagaalamayeen deegaanka Abal ee gobolka Boqol. Abbas Hussein, SABC TV, Muqdisho.